السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرضيدا يا أصحابتا كحرن كانال كينا نسير جرافيكس ميل walba dunida dacaladiisa ka joogtaan isku soo noqoto wacan oo wanaagsan marka la muuqaal cusub waa tahay sida ciwaanka muuqaalka waad ku soo aragtay muuqaalkeenan maanta waxaynu ku baranaynaa sida loo qurxiyo sawirada inagoo ku qurxin doonaa ama isticmaalayna Photoshop. Anigu hadda waxaan isticmaalayaa Photoshop 2020 ayaan isticmaalayaa waxa weeye Photoshop-da dhan waa isku wada mid 19 20 22 all of them 21. So inshallah marka waxaanu baran doonaa sida sawiradan hadda horteena nooga muuqda aynu marka u qurxin lahayn aynu maanta muuqaalkeena ku baran doonaa. Marka ugu horeysa waxaanu ku horeynaynaa sawirkan gabadhan hadda yar qoslaysa. waxaad marka hore sameynaysaa qaybta layeriska waxa weeye waxaad yeelaysaa control J baa leedahay waa koobiyeynaysaa qaybta fiirin layeriska background-gii ama midkan ayaa waxa ka sameynaynaa mid kale oo koobi ah layer 1 midkan ba marka saan kugu sameysan yahay waxaan ku apply gareyn doonaa marka brackets waxa weeye camera raw brackets baan ku apply gareyn doonaa oo inoo diyaarsan haddii marka camera raw brackets adigu aad daneynaysid muuqaalkan isaga ah qaybtiisa hoose ayaan waxaan ku soo dhigi doonaa commentiga ugu horeeya WhatsApp groupkeena iyo Telegram groupkeena halka ayaad nala jaan qaadi kartaa WhatsApp groupkeena iyo Telegram groupkeena ku soo biir sidaas ayaadna ku heli doontaa bracketska. sidoo kale muuqaalkan dhexdiisana waxa aan qaybta kore halkan meeshan hadda aan gacanta kuuga calaamadinayo waxaan ku soo dhigi doonaa bracketskaas password baa ku xiran passwordka ku xiran ayaan halka ku soo dhigi doonaa si marka aad hadhow dib adiguna u isticmaashid. marka muuqaalka waa inaad dhamaysataa waa ku qasban tahay si marka aad passwordka u heshid sidaas la mid ahna bracketskana waxaan soo dhigayaa iyana Telegram groupkeena iyo WhatsApp groupkeena halka ayaan ayaga kala soo dhigi doontaa passwordkana muuqaalkan dhamayso dhexdiisa aad ka heli doontaa. marka waxa kale inaga codsiyaa muuqaalka inoo la garee haddii aad taqaanid saaxiib ama walaal daneynaya xirfadda barashada graphic design-ka channelkan Allah waxaan ku soo gudbinaa casharo graphic design-ka isna waxa weeye u sii share garee maasanid. marka ugu horeysa waxaan tagi doonaa filter markaan tagno waxaan ka sii tagaynaa camera raw filter aan ka tagi doonaa camera raw filter markaynu tagno hadee marka wixii waa preset maadaama uu yahay ku diyaarsan yahay camera raw filter marka sida u soo kicisid halka saddex dhibac waa more image setting waa meesha ku soo qormaya halka la dhacaysa oo ku dhifanaysa deedna waxa weeye load setting baad sii tagaysaa load setting waa soo gelinta meesha laga soo gelinayo presets-ka diyaarsan ee camera raw halka marka ku dhifatid durbadiiba wuxuu igeenayaa anigu folder-hii marka ay ugu diyaarsanaayeen presets-ka marka meeshii markuu igeeyo waa ilaa iyo dhowr presets weeye oo marka mid ayaan ka dooranayaa midkan ay ku qoran tahay camera raw preset by Nasir Graphics 2 ayaan la dhaxi doonaa aan ku dhifanayaa deedna waxaan leeyahay open. waad aragtaa haddaan halkan tago waxaa aragtaa before oo ahaa sawirka markiisii hore iyo after soo noqday before and after ujeedaan marka before iyo after ki waa sidaas. waa tahay presets-kaas ayaan u deysanayaa ama waan ka bedelayaa okaadi midkan ku qoran tahay camera raw Nasir photographer who 2 ku qoran tahay kaaban ku apply gareynaya kan ayaa aad iyo aad toonkiisa ama midabka maqaarka sidoo u soo saaray midkan ayaa aad iyo aad u fiican. so presets-ka sida loo diyaariyay iyana mar baan cashir ka soo sameyn doonaa in aad adigu laftirkaaga presets adigu ku gaar aad diyaarsatid aadna ka maarantid in qof kale presets uu ku soo diyaariyay aad isticmaashid. so marka okay baan leeyahay okay baan ku dhufanayaa waxaan arki doonaa sidoo isku bedelo waa kaasa haddaan soo dhameeyo zoom aan soo dhaweeyaan yiraahdo zoom soo sameeyo waa kaasa gabadhii dhoola cadeynaysay smiling ka sameynaysay sawirkeeda waa kaasa haddaan halkan isha xiro
kii hore siduu ahaa baan arki doonaa. Kii hore sidaa buu ahaa, kanna waa sidan. dabcan labaduba kala ma yareystaan. kii horena waa ka masha Allah waa inaba caadi ma ahayn, kanina waa ujeedaan isna waxa weeye wow very cute. waa tahay breastska. marka haddana waxaan tagi doonaa sawirka xiga, gabadhan sii cararaysa yani iyadana waxaan layerkeeda ku sameyn doonaa copy. waxaan leeyahay control J markaan dhahay fiiri layerkii hore ee gabadhii mid kale ayaa laga soo saaray oo copy ah oo layer 1 ah. marka kaabaan marka saas layer 1 ka baad dul jooga, kadibna waxaan aadi doonaa hadir filter. waxaan ku dhifanayaa camera raw filter, kadibna snap preset baan u raadinayaa load setting presetka. hadda waxaan dalbanayaa idkaan baan dalbanayaa. wow inaba caadi ma so debatable gabadha arag. after and before. waa before siduu ahaa sawirka iyo after. haddaan ku dhifto you see halka haddaan xiro hadda isha kii hore siduu ahaa waa kaasa, kana waa kana you see. haddaan markaa kasii tago aan tago sawirka xiga, wiilkan yar isna waxaan sameynayaa layerkiisa baan koobiyeynayaa. waxaan leeyahay control iyo xarafka J keyboardkan taabanaya. layerkii backgroundiga oo wiilka kiisa hore waa la ii koobiyey, layer cusub baa halkaa laga sameeyey. layerka cusub markaas u dul joogay koobiga, waxaan imaanayaa filter, camera raw filter. sidoo kalena waxaan ku dhifanayaa saddexda dhibicood, kadibna load settings, kadibna waxaan u raadinayaa midab asaga ku qurxoon. okay you see ka bedelayaa. okay before and after siduu ahaa iyo siduu hadda noqday. okay wiilka sidan buu noqday hadeer. haddaan isha xiro beforekiisa waa kaasa, afterkiina waa kan. okay sawirka xiga, lamaanahan qoslaya ee faraxsan ayaan iyana waxaan saari doonaa camera filter. kadib load halkaan tag, load setting ku apply gray. okay before and after you see. inaba caadi maahan. wuu qaadanayaa presetkii, wuu qaatay kamarada xir. okay marka hore gadaal cagaar bay ahayd, haddana markaan waxay isku bedeshay sidan you see. soo dhaweeye marka hore say ahaayeen you see. sawirka xiga waa yarkan wiilkan sawirkiisa sidoo noqon doona. control J ide koobiyey filter, camera filter. kadib load setting ka tag. cheap si aan inaba caadi ahayn buu qaatay toonka. you see siduu noqda arag iyo siduu ahaa marka hore sidaa buu ahaa. inkastoo yarkan wejigiisa uu hadda toonkan dambe anigu aan saarnay ama camera raw filterka dambe aan saarnay uu aad iyo aad uu ifay wejigiisa. xitaa finankii hadda xagga wejiga kaga yaalay iyo finkan waxoogaa hataa hadda sii qarsoomayo, laakiin haddii kii hore loo celiyo waxaad aragtaa in wejigiisu finan badan leeyahay. marka
cashar baan ka soo sameyn doonaa oo waan soo wada cashar isna aan uga hadli doono sida wajiga loo nadiifiyo finanka looga nadiifiyo cashar baan ka soo sameyn doonaa indhaha sida lafrikooda blue looga dhigo ama indhaha guduud looga dhigo meesha ayarta ee madow qaybta madow sida loo bedelo blue ama guduud ama cagaar looga dhigo iyagaasoo dhan waxyaabahaasoo dhan waxaan rabaa insha Allah cashar baan ka soo sameynayaa balse hadda yar waxa weeye waxaan qaadanaynaa casharkeena waxa weeye maanta camera raw filter way wakasa okay you see before and after way okay oh lejankan ninkan odayga isagana qoslaya dhalaxteynaya aan koobiyeysto kadibna aan isna camera raw filter isaga u qalma aan ku apply gareeyo midna aan ku xasuusiyo camera raw filterka sawir walba isku hal camera raw filter ma qaadanayo sidaas darteed baa ilaa dhowr kan camera raw filter idin soo diyaariyay dabcan dadku midabka maqaarkooda ee jirkooda uu kala duwan yahay sidoo kale kamerada markii lagu qaadayay sawirkana qofka backgroundiisa dambe iyo dharku xiran yahay iyo wixii wax inay ismaaj gareyn karaan baa la rabaa wixii inay ismaaj gareyn karaan baa loo baahan yahay si markaa ay waxa jirkiisa camera filterka markaasi aad adigu ku apply gareynaysid ay isugu soo baxaan waa in markaa adigu u doortaa camera filter markaa isaga qofkaasi soo saaray midabkiisa iyo stylekiisa iyo dharka uu xiran yahay backgroundkiisa dambe meesha markaa isaga uu markaa sawirka ku galay waa tahay okay kana ku fiiriyo wow wali kan laga yar fiican yahay isla yahay kana ku fiiriyo hadda oh kan baa xogaa moodaa inuu ifayo okay wili mar kale isug kan soo noqon doona okay wuu qaadanayaa waan arki doonaa soo noqon doona wow midka hadda aan saarno way kiisa hore sidaas buu wajida kan hadda aan saarno waa kasa si kiisa hore saas buu kaadaas soo marka muhiimada waxa weeye in adigu aad baratid sida loo sameeyo camera raw sida loo sameeyo iyadana cashar gaar ah baan ka soo sameyn doonaa sida aad adigu camera raw filter adigu ku gaar ah sameysan lahayd haddii mar aan ku tusana dabcan camera raw filter oo markaa badan ayaad adigu sameysan doontaa si markaa sawirada aad adigu qurxinaysid hadaa adigu tahay ruux ama qof markaa photographer iyo hadaanad ahayno markaa adigu sawiradaada aad ku qurxisan lahaydba soo marka taas ayaa muhiim ah mar walba okay qalanjadan ayaan markaan kusoo gabagabeynaynaa camera filter toon iyada u qalmaan raadin doonaa loading setting okay oh no kan kuma fiicna oh no weli kan kuma fiicna oh waxaas leedahay kan baa soo saaray okay see akana mid kan baa iyada soo saaraya soo marka waa kaasa see soo marktid clearance-ga sawirka soo saaray arag marka waxa dhan oo sawirkaaga qurxinayo waa horta marka ugu horeyso waxay sheekadu ka soo bilaabmaysaa adigu labiskaaga qaab style-kaaga thaniyan ama marka labaad waxa weeye ruuxa uu markaa sawirka ama footada ka qaadaya ma yahay ruux professional ah kamerada marka laga qaaday mata kameradaha yani dambe kamera ah oo marka sida 80D iyo 90D kameradaha markaasi sawirka fasiixa qaadaya sidoo kale lenseska lagu isticmaalayo ama kamerada
isha lagu xiriyo ma tahay il dee markaasi lenses oo si fiican sawirka xaada ka dhigaysa ma tahay aduu inahaasoo dhan isku soo duub markii intaas sawirkaaga uu saxan yahay oo stylekaaga iyo dhan walba waxaasoo dhan ay fiican yahay sawirkaaguna uu clearancegiisu aad iyo aad u fiican yahay oo sida hadda gabadhan oo kale uu yahay oo sawir ifay uu yahay isi wax jajab aan ku jirin ayaa markaas toonka ama latska ama camera raw filterka marka adigu aad ku apply garisid si wuxuu ku soo qabanayaa sawirkaaga u soo saarayaa si aan inaba caadi ahayn ama haddii aad ku shaqaysatidna qofka markaas adii sawirka ka qaadid latska ama camera raw filterka si aan inaba caadi ahayn buu u qaadanayaa marka intaasna waxay iga ahayd xasuusin ujeeda gabadhan lafirkeeda waxa weeye si aan caadi ahayn baa loo qaaday sawirka professional person baa ka qaaday qof yacni xirfad u leh sawir qaadista iyo markaa kaameradii iyo wixii dhan wax markaasi qalab high quality ah way ahaayeen sidaas la ajligeed baa maanta markaa annagana aan ku apply gareynay filterkan aad arkaysaa jirkeeda siduu u qaatay uu soo saaray isi waa tahay casharkeena ama muuqaalkii aan ugu talgalay sida sawirada loo qurxiyo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono waxaan kaga tagayaa peace and life